war asxaabey waxaa la yidhi Somali Airline ayaa bilaabanayso diyaaradii magaca iyo faca weyneed ee Soomaaliyeed ee Somali Airline ayaa bilaabanayso waana guul u soo hoyatay shacabka iyo dawladda Soomaaliya haddii diyaaraddaas ay bilaabato maxaa yeelay heebadii iyo sumcaddii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed ayaa soo noqonayso laakiin hal dardaaran ayaan rabaa inaan ku daro oo haddii diyaaradda la soo celinayo waa inay noqotaa brand new diyaarad cusub waa inay noqoto waaye waxaa kaloo la rabaa diyaaradda haddii la soo celinayo diyaarad maintenancegeeda leh muxuu ahay safety featureskeeda leh aad ay muhiim u tahay maxaa yeelay waxaan ognahay hadda diyaaradaha Soomaaliya ka shaqeeyo kuwa internationalka maaha laakiin kuwa localka way iska dhaqaaqaan runtii oo inta badan ma lahan dayactir ma lahan maintenancegooda aad loogama taxadiro security featureskooda ama ammaankooda aad loogama taxadiro markaan leeyahay ammaankooda aad ma loo taxadiro waxaan ka wadaa diyaaradda badqabkeeda xagga farsamada technicality aan ka hadlaa ama ciladaha muxuu ahaa xagga ku imaan kara injiinka oo kale iyo waxaas oo dhan aad looma hubiyo waxaa arkay diyaaradda hadda gobol ka timid markay soo dhigato soo degtay aadan cadde kadib haddana rakaab kale passenger kale ay qaado haddana gobol kale aado lama rabo waxaa la rabaa diyaaradda sideeda markay soo degto ay soo caga dhigato in la hubiyo injineeradu hubiyaan la fiiriyo muxuu ahay mechanical engineeringska dadka teamka u joogo inay hubiyaan motoorka ciladaheeda baalasheeda wixii dhan la hubiyo windiga say ula falgeli karto la fiiriyo waxyaabo badan ku imaan kara diyaaradda marka kadib passenger kala saara ay kacaan marka hadda ma jirto waxa waaye bas caasiya laga dhigo home waa la imaanaa magaala laga imaanaa magaalo kale la aadaa dhagdhag waxa waaye rakaabku waa dejinayaan horaa laga qaadaa kii kale ma laga fikiraayo dadkan la qaadayo haddii hawada diyaaraddan uu ka lahalaawdo maxaa dhacayo maxaa imaan karo khatara ma laga fiirinayo maxaa yeelay baabuur mini basa laga dhigo oo rakaab lagu qaado mini baska ama caasiga baska ayaaba ka muxuu ahay khatar yar maxaa yeelay haddii uu jidku ula halaawo dadka rakaabka waa degi karaan baabuur kala saari kartaa baabuurka cilada ku timid degaa dhigi kartaa oo halkaas ku samayn kartaa baabuurka laakiin diyaaradda haddii hawada kugula hadlaado oo muxuu ahay cilad ay ku timaado intay ku dejinay see dadkan intay geynay waxay noqonaya pilotka si kastoo samayn kara inuu sameeyo hadduu dhulka oo ku tuuri karo hadduu bad u dhow yahay inuu badda isku tuuro waxaasoo dhan khatarahaas oo dhan marka imaan karo crash imaan karo diyaaraddu inay hawada ku barto dab ka kaco cilado badan iyo rafaad badan ku imaan kara xaqiiqatan marka waa dhibaato aad u weyn waaye haddii marka Somali Airline ay imaanayso waa diyaarad international dabcan maaragtay muxuu ahaay safarro caalami ama international flight muxuu ahaay duulimaad toos ahoo ay geli karto Muqdisho Nairobi Dubai ama Muqdisho Dubai toos samay karto direct flight samay karto Muqdisho Doha sida diyaaradaha Qatar Airways iyo Ethiopian Airlines marka waxaa la rabaa marka hanaanka standardkaas in la waafajiyo waxaan maqlayaa hadda shirkadda Hormuud waxay qaadanay 75 muxuu ahaay shareka ayada iskale dabcan dad kale inay u ogol yihiin in kale I don't know aniga laakiin dabcan hadda dudubla inta ugu badan san dareemo iyo shareka qaatay si kastaba ha noqotay waxaa la rabaa in safety featureska diyaaradda laga fikiro passengerkii qaadaya dad Soomaaliyeed waaye diyaarad magaca Soomaaliya huban waaye oo in muddo saaxadda ka maqneed marka inay la soo noqoto dardar iyo maaragtay muxuu ahay diyaarad casri ah oo maaragtay muxuu ahay adeegeedu dhameystiran yahay oo diyaaradaha la tartami karto caalamiga sida Qatar iyo Emirates iyo British Airways iyo Lufthansa Air iyo Air France iyo waxaas oo dhan ayaan rabnaa anaga inay noqoto si sumcadda iyo karaamada ay Soomaaliya u soo noqoto sharafka iyo karaamada maaragtay muxuu ahay aviation Soomaaliya u soo noqdo intaas waa muhiim tala ahaan aan u soo jeedinaa airportkana runtii in standardkiisa hor loo qaado darad waan ka hadlayay marka laga hadlayo airport caalami cadde international airport waa iska dhahna anaga xaqiiqatan airport wuxuu u baahan yahay waa naqaan qaabka uu dhisan yahay airportkan hadda Turkiga gacanta ku haya dabcan adeegii waa ka qabteen laakiin weli airport international ama caalami maaha xaqiiqatan qaabka uu dhisan yahay waxaa moodaa warehouse ama baqaar ee Amazon leedahay oo alaabta ay ku kaydiso waxyaabaha ay delivery ku sameynayso marka hangaraad moodaa wax lagu kaydiyo marka lama rabo airport caalami waa naqaan qaabka uu yaalo Jomo Kenyatta waa taqaanaa international airport waa Nairobi qaabka uu dhisan yahay Addis Ababa waad aragteen Kigali qaabka ay dhisan tahay waa aragteen marka Abuja waad aragteen Nigeria
diyaaradaha garoomadaas caalamiga ay Afrika ku yaallo Accra waa aragteen Ghana saasoo kala rabaa Soomaaliya inay yeelato garoon caalami ah marka garoonka in laga dhiso Warshiiq waa soo dhaweynaa maxaa yeelay sida adduunka internationalka garoonka iyo magaaladu waa in space u dhaxeeya qofka marka uu ka soo daga xataa garoonka intuusan magaalada soo gelin waa inuu dhul dhexe soo maraa qurux badan masaafada xoogaa ay yara fog tahay maxaa yeelay buuqa saxmadda garoonka laga fogeeyay magaalada hadda wixii oo dhan hoos isaga jiraan Turkina hadda uu iska hay gacanta ku haya maahane xaqiiqatan wax hadda oo buuran ama horumar weyn oo la taaban karo oo hadda la dhihi karo ma jirto garoonka waa laga qabtay marka runta laga hadlaayo bari dhexdaas soo ogeedeen ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barro ka ashtakoonayo musqulaha garoonka nadaafadooda marka wax badanaa jiro daawadayaal wax badanaa jiro hadda waxaan ka hadlayaa ma ahan garoonka ma ahan waxay tahay diyaaradda Somali Airlines oo dib loo bilaabayo marka waan ku faraxsanahay aniga ka muwaadin ahaan shacabka Soomaaliyeed waa ku faraxsan yihiin meel kasta joogaan sharaf iyo karaamo in Soomaaliya ay ku duusho diyaaradeedii ee leedahay Somali Airlines wasiiradu ay raacaan xildhibaanadu raacaan dadka ganacsatada elitiska ay raacaan dhamaantood ciyaartooyda Soomaaliya lagu qaado markii ay ka qayb galayaan ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika ama muxuu ahaay maaragtay muxuu ahaay wufuudda kala duwan ee Soomaalida shacabka Soomaaliyeed markii aadayaan ay maaragtay muxuu ahaay safarada kala duwan kulli waa muhiim marka wax la soo dhaweeyo la bogaadiyo mudan waayo laakiin ha noqoto diyaarad cusub oo brand new loo dhameystiray muxuu ahaay tiimkii ama quwaradii dhanka farsamada cilad bixinteedii aad looga taxadiro tayadeeda aad looga taxadiro standardka diyaaradaha caalamiga ee buuxiso si adduunka meel kasta ay ugu gooshto ama ay ugu safarto dadka Soomaaliyeedna ay ku faanaan runtii marka mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay hambaliyo inta isku hawshay u istaagtay muxuu ahaay shirkadda ama Hormuud ay qayb ka tahay Hormuud wax badan ay dalka ku soo hodhisay xaqiiqatan iyo maaragtay muxuu ahaay Axmed Nuur Jimcaale wax badan ay qaateen door badan ay ciyaareen oo dawladda looga baahnaa ay ayaga isku howleen marka inay maalgelintaas sameeyaan oo ay lacagtooda ku maalgeliyaan oo runtii ay u bareeraan oo riskigaas ay qaataan wax lagu bogaadiyo u baahan in la amaano dhamaanteen aan soo dhaweyno waan ku faraxsanahay xaqiiqatan in ay doorkii dawladda laga rabay ay buuxinayso shirkadda Hormuud oo meel kasta ayada u taagan tahay si dadka Soomaaliyeed ay horumar ganacsi iyo maaragtay caalamka aan looga harin haday noqon lahayd isgaarsiin haday noqon lahayd internet haday noqon lahayd muxuu ahaay kaabayaal dib u dhis haday noqon lahayd isbitaallo haday noqon lahayd maaragtay adeegyada kala duwan dhismo casri iyo guryo la dhiso iyo waxaasoo dhan marka shaqo fiican ay qabatay Hormuud oo u baahan in la bogaadiyo la amaano dawladduna ay maaragtay muxuu ahaay la shaqeyso laga dhigo public private partnership Hormuud iyo dawladdu isdhex galaan waxa shuruucda iyo regulationskana ay ka caawiso dawladda ay maaragtay ganacsatadu dhiirigeliso ayaa la rabaa sida adduunka ka dhacdo maxaa yeelay adduunka daawadayaal marka ay madaxdu safrayaan waxay wadaan ganacsatay sii wataan oo shirarka kala qayb gasho xagga bayac mushtarka si idea iyo fikrado ay u soo qaataan ayagana fikrado ay u geeyaan oo investment ay u soo jiitaan oo ayagana maaragtay muxuu ahaay isdhaafsi dhanka khibradaha ay u helaan marka annaga fuudeena wasiirka ganacsiga asaa baxo iyo inta wasaaradda la joogto unba wadaa ama reerkiisa uu sii wadaa sax ma ahan waxaa la rabaa ganacsatadu inay invitationka wax laga siiyo fiisayaasha loo soo dhameeyo shirarka aadaan maxaa yeelay waxay soo arkayaan khibraday soo arkayaan dawladahaas ay ka keensanayaan idea ee la tagayaan meesha businessyo ganacsiyo fikrado hal abuuray soo helayaan maalgelinay soo helayaan ayagana waxaa la soo siinaa opportunity inay maalgashadaan ganacsato kalena oo dhiirigelin u sameynayaan oo dalka inay kusoo dhiirigeliyaan foreign direct investment waxa la dhaho marka waa ma la kala maarmo oo ganacsatadu iyo dawladdu kalama maaranto dhaqaalaha iyo siyaasaddu waa isku xiran yihiin political economy la yiraahdo maadaama laaba jirto marka economiga iyo politics kalama haraan waa connected wax isku xiran waaye in looga faa'iideeyo dadka Soomaaliyeed ganacsataduna ay door iska saaraan waxa ay dalka keenayaan ayagana waa muhiim haday noqon lahayd service haday noqon lahayd product wax tayo leh haday noqon lahayd material ama alaab guryaha lagu dhiso qalab wax tayo leh inay noqdaan quality control ay fiishaan ee quantity aysan fiirin iyo profitka iyo aysan money oriented noqon wala ayaga lacag kaliya iyo macaash aysan fiirin waxaasoo dhan aad u muhiim u tahay daawadayaal mar kale waa bogaadina Somali Airlines iyo inta isku hooshay inay Somali Airlines dalka keento ama ay mataqaanaa ay soo noqoto ay dib u soo noqoto marka daawadayaal aad iyo aad u mahadsantihiin sida aad markasta u daawataan muuqaalada qari caafimaad ay rajeynaa aad ku soo dhawaada channelka dadka cusub tihiin subscribe saara videoga Miller Garcia aragtidiina qaybta hoose commentiga
kusoo qora sida aad ugu faraxsan tihiin inaad Somali Airline ay soo noqoto oo dalku runtii horumar uu sameeyo. runtii waa wax aan u baahannahay inaan isku hambaleyno oon bogaadino dhammaanteen. marka waa mahadsantihiin mar kale iyo mar kale. sababta aan uga hadla waxay tahay aniga aviationkan u leeyahay aqoon runtii. marka wax badan waan ku ogahay xaqiiqatan. that's why aan u leeyahay marka ha noqoto diyaarad brand new oo cusub oo featureskeeda loo dhammaystiray standardkeeda la waafajiyay standardka aviationka caalamiga mataqaanaa protocolska aviationka dhammaan si ay duulimaadyo caalami u samayso rakaabkuna u raacaan cid xanuunsan iyo cid xanuunsaneen caruur iyo waayeel intaba loo raaco safarada dheer ee gasho mar kastaaba adeeggeedu u dhammaystiran yahay. marka bye bye.